waxay joogaan waxay culimadu odhan jireen qarni lihaana. taariikhda Chinese-ka marka laga warramayo qarni taariikhdiisa ka mid ah ayay waxay ku sifeeyaan inuu ahaa qarnu lihaana, qarnigii dullinimada. laga soo bilaabo waqtigii lagu qasbayay inay afyuunka qasab ku cabaan 1850 something-kii ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida gabagabadiis. qarniga waxay ku magacaawdeen inuu yahay qarnigii ay dullinimada ku noolaayeen China, laakiin hadda waa ka baxeen. waxa haddaba qarnigii dullinimada weli ku jira dadka muslimiinta ah. dadka muslimiinta ah hazaim ama jab iyo dhaawac iyo dhib aad u tiro badan baa gaadhay laga soo bilaabo khilaafadii islaamiga u dambeysay markay duntay. xataa intii ay daciifka ahayd ee iska liidatay waa lagaga baqayay muslimiinta, waayo xuduudina ma jirin. odayga ka madaxda ay hadduu jihaad iclaamiyo muslim ciidda ka badan buu heli karayay. sida awgeed may dhicin xataa yuhuud markii meeta la jeedinayay waxay yidhaahdeen wuxuunba la dejin karaa hadduu ama isagu yeelo ama khilaafadu dunto. ficlanna markay duntay ee muslimiinta gobol gobol ka dhigeen ee qolo walba xayndaab ku wareejiyeen ayay yuhuuddana inu gooyeen oo yidhaahdeen idinna intaa qaata. markaa caalamul islaami markaa waa muddo imika qarni iyo dheeraad maraysa. reer galbeed way gumaysanayeen, yahuudi waa gumaysanaysay, raasheenku waa gumaysanayay, Chinesku waa gumaysanayaa, hindidu waa gumaysanaysaa, booramada yari waa gumaysanaysaa, xataa shiica gumaysatay ahlu sunnihii. intaa marka la soo dhaafo waxa gumaysta hadda xukaam ilcaalam alislaami kuwa sheegta oo iyagu siyaasadoo dhanna gacantooda ku koobay, dhaqaalahoo dhanna gacantooda ku koobay, dadkana xornimadii ka qaaday, tabaciyana u yeeshay inay fi silmi walxarb qaraarkoodu inuu ka guntamo galbeedka. ilaa xad ay gaadheen iyaguna haddii meel uun islaam ka bidhaamo inay kuwa ugu horeeya la dagaalama iyaguba yihiin. waa maqlayseen safiirkii imaaraadka ee Maraykan joogay maalintii dhaweyd la wareysanayay wuxuu ku hadlayay isagoo ka hadlaya Suuriya iyo qadiyadeeda. hole waxa laga rabaa Suuriya inay dawlad cilmaaniya oo madaxweynuhu aanu xoog badnayn oo xuquuqda aqaliyada systemka wax ka siisa. iyaga wuxuunbaa u daran meel in xorriyad laga sheego ama bucbuca la yidhaahdo al-islaami siyaasi, labadaa uun in la sheegaaba iyaga u dhibaa. caalamul islaami markaynu guud ahaan eegno waxaynu odhan karnaa waa adcaf al-umam al-ana fi al-caalam. dunida dadka ku nool waa ummadaha ugu daciifsan. raashiyada tan 1924 ilaa 1940 waa imisa sannadood? 1924 ilaa 1940 waa 16 sannadood. 16 sannadood wuxuu qabsaday 4.5 milyan kilometer square muslim leeyahay. 16 sano gudahood ayuu wuxuu qabsaday 4.5 square million miles buu qabsaday bay yidhaahdaa, million kilometers. wuxuu dumiyey wakhtigaa ilaa 10,000 oo masjid, wuxuu xidhay ilaa 14,000 oo madraso, wuxuu raray oo dhulkoodii ka raray mujtamac dhan oo muslimiina. inta ku xorowday ka kaalay hadday xornimada sheeganaysaa. yani Soviet Unionku 15 wadan buu ahaa oo raashinka 3 wadan ee Baltiqa ah, 3 Yurubta bari ah ee Belarus iyo tan imika istilayaan iyo Moldova ah, 3 qawqaasiyiinta ah ee Georgia iyo Armenia iyo Azerbaijan iyo 5 Aasiya al-Wusta. 15 wadan buu ahaa. 15 wadan 7 ku dhow waa muslimiin.
isla markaa imika inta uu gumaystay gudihiisa ku jira 40 qowmiyadood oo muslima baa Russia hadda ku nool gudaheeda 7 gobol oo Russia ka mid ah bay majority-ga iyagu yihiin marka la isku soo daro waxa la yiraahdaa Stalin oo qori la 12 milyan oo muslimu ayuu hijreeyay oo dhulkoodii ka raray badilkooda 12 milyan oo Russia inuu soo dejiyay in badan oo kamid ah waa kuwii soo yaacay Sham iyo caalamka islaami iyo khaliijkan iyo meelaha kan waqtiga hore marka la eego bay dhaayeen 1932 ilaa 1934 waa 2 sanadood gudahood 3 milyan oo Turkistan ah markay Russia iyo China qaybsanayeen Russia 3 milyan oo Turkistaaniin intuu raashinkoodii ka qaaday buu China siiyay dabeetana waxay dhahaan 3 milyan baa gaajo u dhintay raashinkii uu ka qaaday oo qura 40 kun uu hijreeyay Grozny iyo wixii uu ka sameeyay suu baabiyay wada garanaysan muslimiinta aan ka warramaya shiicana maaha oo muslimiin ahlu sunnah waa Xanaaf iyo Shaafiiciyiin bas muslimiinta oo raashinka gumaystay waa Xanaaf iyo Shaafiiciyiin sida awgeed man jeceli wax badan alamti muslimka soo gaadhay inaan ka warramo markii Soviet Union kaasi burburayna reer galbeed markii hore caalamka islaami waxay dhahay xorriyad baanu idin siinay laakiin min waraa istitar bay ka maamulayeen markii Russia meesha ka baxday si dhaba bay gacanta ugu qabteen oo waka General Wesley Clark waa janan tahaysan jiray American officer weyn ahaan jiray dagaaladii Vietnam farjar ku dhaawacmay 8 jir hadda maraya oo retire ah General Wesley Clark oo ninkan tahaysan jiray baa wuxuu leeyahay markii 11 September nagu dhacday 10 maalmood kadib baan Pentagon-ka imibulay waraysi uu bixinayo October 3 2007 10 maalmood kadib baan imibulay yahay Pentagon-ka guriga ciidanka Mareykan looga taliyo markaas waxay ugu yiraahdeen buu Ciraaq baynu weeraraynaa waan yaabay buu way baan weydiiyay buu maxaynu Ciraaq u weeraraynaa ma terrorist-ka link la leeyihiin baan ku yiri bay dhahay markaas ay yiraahdeen maya 11 September wax shaqaa kuma leh hadda maxaa loo weerarayaa baan ku yiri buu yiri ninkii ila hadlayay sarkaalka wuxuu igu yiri buu aruguba garan maayo dagaalkii Afghanistan baan galay buu yiri 6 wiig baan maqnaa waan soo noqday markaan soo noqday ayaan janankii la kulmay buu yiri dabeetana waraaq uu xagga hoose intuu ka soo saaray ay wuxuu yiri madaxdu waxay igu yiraahdeen 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya markaan yiri waa maxay sababtuna sababta anugu baqlay ma sheegin buu yiri garan maayo waa 7 waa Ciraaq Syria Lebanon Libya Somalia Sudan Iran 7 hadda waa la weeraray waqtigan ka warramayno yani 7 ay sheegaynaba 7 waa la weeraray waqtigaasi kadib saashay Swediinta la waxay tahay reer galbeedku maxay naga rabaan dad ducafaa oo masaakiina waa waxba yeelayn oo meel cidla iska fadhiya maxay ku falayaan oo ay ku xog badan yihiin dilistooda waxay yiraahdaan reer galbeedku waxay rabaan waxay u bixiyeen nimankaasi 7 wadan weeraraya al-fawda al-khallaaqa waxay yiraahdeen chaos baanu ka rabnaa meesha tan ama si kale haddaan u tilmaamno waa taqsiim al-muqassam markii hore Sykes Beacon waa la googooyo wadamada yar yar baa laga dhigay markii la hubiyay mid walba inuu iyaga ku xidhan yahay ayaa haddana waa la googooynayaa mar kale ayaa googooynta soo noqonaysa oo maxaa laga rabaa waxay leeyihiin waxa la doonayaa inay noqdaan al-fawda al-khallaaqa creative chaos waxay yiraahdaan oo waa maxay macnaheedu wax weeyaan bay yiraahdeen decentralization then the government will be the UN bay yiraahdaan waa in wadanada tan dawladnimadooda la baabiyaa decentralized laga dhigaa cidda ka talinaysaana waa inay noqotaa UN ta maanta Soomaaliya ka taliya
dowladaynu daynagu markaynu wada hadlayno isu sheeganaa dowlado iyo gobollo iyo waxbaynu sheegnaa dowlad kasta iyo gobol kasta afar wasaaradood oo ka midiba hay-ad UN taaba wax siiso ay hoos tagtaa waxay samayn kartaa ma jirto inay hay-adda ku noqoto mooyaane dhowr wasaaradood UNDP baa u taliya dhowr wasaaradood UNESCO u talisa dhowr wasaaradood Save the Children baa u talisa dhowr wasaaradood kuwa qaxootiga u taliya hay-adka UN ta ma yiraahdaan meeshan anaga xukunna laakiin afar wasaaradood ba hay-ad bay ku xidhantoo ka taliyaan waa dhammaan Soomaaliya dacal ilaa dacal wasaarad kasta afar wasaaradood oo kasta waxay ku xidhayeen hay-ad kuwaasi ka mid ah waa decentralization kay sheegayeen ee ah dabeetana governmentku inuu UN ta noqdo waxay yidhaahdeen markii hore dowlado centralized ka jiray iminka waa in federaaliyad loo bedelaa bay yidhaahdeen federal states Iraq waa la googooyay federal states baa laga rabaa Soomaaliya waa la googooyay federal states baa laga rabaa Libya waa la googooyay federal states ma wada noolaan kartaan baa la wada leeyahay Sudan waa la googooyay intii soo hadhay hadda lagu sii wada Suuriya hadday kawaanka saarantay qoladii hore shiicadii waa laga saaray imika dheriga loo karinaya ilaahay setooda kama dhigo imika dheriga loo karinaya in shan gobol laga dhigo duwaylaadka markii loo qaybiyaa yuhuud meel laga siiyay marka hore imikana marka duwaylaadka loo sii qaybiyo inta hadhaa loogu daraya su'aasha isweydiinta leh wax weeyaan maxay naga rabaan waa maxay waxaynu yeelay naga doonayaan waxay yidhahdaan reer galbeedku isku dan qudhayn oo lama wada dagaalamayo qolo diin bay u dagaalamaysaa oo hay-adkoodan masiixiga iyo saxwadoodan dambe kristanka evangelistku u badan yihiin iyo waxaan oo dhami iyagu diin bay u dagaalamayaan ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بيتاغيين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كوا سوى الدين قل يكالي waxay u dagaalamayaan dhaqaale ahaan waa caalam islaami laba shay baa laga rabaa bashar mutadarriba qof bini aadam oo wax la baraan dawladda kharash kaga bixin hal tusaale aan isiiyo Yurub markii la isku furay ayaa Poland waxa ka dareeray dadkoodii aqoon-yahanka ahaa waayo lacag badan baa lagu hayaa Yurubta galbeed dabeetana dhakhaatiirtii injineeradii wixii baa Jarmalka u guuray Jarmalka ay lacag badan ka sameynayaan dawladda Poland waxay soo xisaabtay qof walba wixii kaga baxay dabeetana Jarmalka ay ku ashtageysay lacagta inta laginu soo celiyo hadduu dadkii qaatay dadkaanu soo saaray intaasoo kharasha ku baxday dadkan aad qaadatay soo celi Yurub baa la isula tegay Jarmalka lagu xukumay inuu lacagta dees ka bixiyo ilaan dadkan dad baa wax bartay iyadoo halkaa maraysa ayaa Suuriya durbaanka dhabarka laga dhuftay 1 million people oo dhakhaatiir leh oo injineer leh oo wax walba la bay heleen booliskii waxay yiraahdeen ka xaysta dadkiina uma baahanine waxa la helay badiilkii oo laga keenay xagee laga keenay Suuriya baa la helay idan bashar mutadarriba way u baahan yihiin way dhali waayeen dhalinyaro u xoojisay u baahan yihiin man power bay u baahan yihiin hatta kuwaan wax garanayn waa loo baahan yahay iyagoo man power waxa kaloo caalam islaami yaala khamaat rakhiisa waxa la aliyo waxa macaadin loo baahdiyo shidaal iyo everything hotel tabeystan laga siisto marka qolo aan diinba iyagu rumaysanin iyagu waxay kula dagaalamayaan mentality-ga ah dhaqaalay u dagaalamayaan qoliyo kale waxay caalam islaami ula dagaalamayaan geopolitics waxay u arkaan mantiqadan cidda xukunta inay dunida xukumi karto hatta hadduu dhaqaale ahaan ka maarmo wuxuu arkaa mantiqadan maamulkeedu waayo wixii uu ingiriisku u bixiyay the checkpoints waa de meelahan wadannada marka la soo galayo laga galo waxay dhahdaan dunida 8 checkpoint baa ku yaala 7 caalamul islaami ku yaala kabana makanaalka ku yaalo qura ayaa ka baxsan inta kale laba turkiga ku taala mid waa Jabal Tariq mid waa kan ku yaala Suez Canal mid waa kanaalkan Hormuz mid waa Bab Mandab midna waa Malqa kan Indonesia ku yaala
waxay dhahaan checkpointska dunidoo dhan gacantooday ku jiraan hadday iyagu gacanta kuwan si dhaba ugu dhigaan dunida way kala goyn karaan sidaa awgeed ninka raba inuu dunida ka tariyo iyo badaha dunida uu ka taliyo qadiyadan dib baynu uga warrami doonaaye waa inuu checkpointska gacanta ku dhigan marka kuwa raba xataa le dhaqaalahaan uma baahnin oo waanu haysanaa waxay haystaan oo dhami waxay leeyihiin laakiin inaanu mantaqadan xukunaa baanu u baahanay qolo kale waxay leeyihiin xataa haddii mantaqada laga maarmo waxaanan rabin model xadaara oo ka fiican ka iyagu inuu soo baxo dadkani waxay leeyihiin xadaaro values leh iyaga xadaaradoodu waa technology laakiin value ma walato qofka bini'aadamka qiimo uguma fadhiyo aan ahayn qaanuunka guud akhlaaqiyaadkii iyo dadnimadii waa dhimatay marka waxay leeyihiin ma rabno modelanka iyaga ahayn inuu dunida ka muuqdo oo sawkan China iyo kuwan soo baxaya kuwan waxay leeyihiin tanaafus dhaqaalaha naga dhaxeeya laakiin xadaaro iskuma hayno ma values kuma hayna bay leeyihiin laakiin kuwa kale hadday soo baxaan bay leeyihiin waa value cusub oo dunida ku soo kordhaya waa systemkayga ka gadisan walidalik afkaartooda dhan markaan isku soo darro bikulli tawaifihim kuwa mutadayiniinta kuwa mulxidiinta kuwa markaad isku soo wada darto waxay leeyihiin meeshaasi inay daciif ahaataa dan inoogu jirtaa العالم الإسلامي إنه ضعيف هذا بداً إنه وجرته ما نربى مركا إن نكور رمض نبتة إيجيستين أنت إلكتي دي وحيابا ما أنت كنا عياتي في ذا كاركتان بقفلا والتاسو بلو تي في أدو قياس وحي كدي عجري إما كو كاميرا الله يسكوها يو الله يسأرك يو أيا وحا أركتين دوني ذا كنا عيان ودادك مسلمين تعالوا سمعين أيا taasoo aan dunida TV iyo kamera iyo cid ku arkaysaa jirin wixii ka dhacay sidoo eegyahay yani kutub taariikh qaarkood ma akhri kartid markaad aragto waxyaabaha la qorayo saddex muxaadaro noocan ay ku qoran laakiin waxaan jeclay inaan inta dambe oo dhan ka guuro aalamta waayo aalamtu waa waxaad dareemaysaan waxba idinku kordhin mayo waxaynu u guuraynaa maxaynu kaga bixi karaynaa amaal maxaa rajo muuqda dadka in badani way quusteen waxay leeyihiin nimankan nuclear weapon bay haystaan kan bay haystaan maxaa cidi kama hor iman kartaa la taagayay afar shay ayaan rabaa markaa inaan taana ku soo koobo shayga koowaad waa الاعتماد على الله الاعتماد على الله إلهي سبحانه وتعالى إن نبرنه ويساق كتير سنه كلا بعدنا وفهم السنن التاريخ وإن السنة القرآن كينوغ الشيكية تاريخ ده بني آدم كي سيسو قدده وإن نفهمنا كصدحادنا واستشراف المستقبل وإن نسهم الناس عضالنا oo eegnaa oo dorosnaa mustaqbalku sida uu noqon karo haddaynu labadan si fiican u fahmno innagoo lababa ku eegi karna waxyiga iyo mustaqbalka wuxuu inoo tilmaamayo hadduu quraan iyo hadduu sunno yahayba iyo juqraafiya siyaasiya fi العالم الإسلامي hantida uu haysto deegaanka muslimiintu u degaan geopolitics muslimku uu leeyahay afartaa shay baynu wax ka tilmaami doonaa tawo horreysaynu maanta oo tilmaamay haddii la yidhaahdo ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay warabbuka yakhluqu maa yashaau wa yakhtaar maa kaana lahum alkhiyara kownkan inuu ilaahay gacantiisa ku jira alla inoo tilmaamaya biyadihi almulk wa huwa cala kulli shayin qadiir dunida dhammaanteed inay ilaahay gacantiisa ku jirto isagu wuxuu doona abuuro wuxuu doonana doorto wama kaana lahum alkhiyara bini aadamkuna inaanu doorashada lahayn kownkan maamulkiisa waxa ku saabsan وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل شيء فصلناه تفصيلا إلهي إنه الدنيا تن وح كستوك دعا وح فوضي ما جران وح مصادفة اسكو باغنت كما جرت الدنيا وح اسكو باغ ما يونا ساو دعي وح والبقر شاء إلهي بك السعودة سبحانه وتعالى ولذلك
أي غزوة أحد دقال كي أحد لورن جري ودقال كوب صدي بالله هذا شاب يقول مرقرة دقال كاسي إلهي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وحكا ورميا كنتن يسدد آيادودو اسكحية لقبل أبا آيادا بقول يكوبي اللباتنات إلى يبقول يسقال يتضباطا كنتن آيادودو اسكحية با إلهي سبحانه وتعالى كقا ورميا دقال كاسي كنت كا آيادودو حكم ده لبا آيادودو إلهي سبحانه وتعالى دنا وقروح دي داوعي مسلم كقاري تلماميو دنا ورجدو تلماميو دنا وتلماميو إلهي سبحانه وتعالى يد القدرة إن مرب الليل إلهي وحلي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إلهي آياتك ووادح الرجل قلنا يا دتك مسلمين توحوا ولا تهنوا هن يتشبنا باللي هضعيفنا هل ليدن لنا ولا تحزنوا هن مرغوننا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صفة هدي الله إذن كهلو إذن كاكوا كفريا بإلهي إليه سبحانه وتعالى مركزها آيات كحكتا إلهي وحط المام يلا بالشيء مد جروح دي مسلمين تسوق قاعدين بإلهي تلمامية هو الرب وحلي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرحا مثله هدي داوعدن هلالي با إلهي لي يدب إياك بدي بيوقع دابا إلهي لي سبحانه وتعالى لميدا آيات هل كانوا قصوا عنا مركواتا الاعتماد على الله إلهي وحلي وتلك الأيام نداولها بين الناس إذن كان يكون إحنا با إلهي لي وتلك الأيام وأما المه أن دتك أكلك قدين يا با إلهي لي يد القدرة با إلهي نتصينيا أدون كان إنه يساق عنتي سكوتشرو قول يهزيمه ألم يشدو الرجاء يوحي الدنيا كنا عيوننا نسوي ليه سبحانه وتعالى ولذلك ما إلهي آيات قال نبي الله موسى مركي لقوا الرمى يوحى رب ليه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نبي نبي الله موسى عليه السلام بتلكي وحكيري إلهي تلصارتا وقرقار سدا الله قرقار كيسا ويديستا والصبر والتحمل ياشا مركاسا وحو تلماميا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قلك إلهي باسكاله إن الأرض لله جملة اسمية إنه حرف التوكيد الله صعطا إلهي كتلماما إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده أدومه سعيد الضرب الحلسية لكن عرفت الضنباء مالبه يثبت بدالي دونان يوم لك ويوم لغيرك ولكن والعاقبة للمتقين عرفت وحسكله كو إلهي كعب صدب رب الله سبحانه وتعالى آيات كله وقصة موسى كصابسا وكوي يري أذينا من قبل ما جئتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا مركز موطمية مركز عندنا ليش شوقين لبدا وانا القومي سنشري بين هذا غير بنو إسرائيل مركز يقولوا عسكر نعية كذب أي مركز وحكوا عصى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا وحلارك حقيقة وحا ربكين إنه دولك إذن دحل سيول لا قبل هذا إذن كنا محاسة ميسان أيها الأحبة markaan leenahay ilaahay baynu tala saaranaynaa waa inaynu garannaa maamulka kownkan inaan bini aadamku lahayn ilaahay inuu leeyahay fi suurati al-imran laba aayadood ku jira ayaa ilaahay wuxuu isku xidhayaa kownka maamulkiisa iyo bini aadamka maamulkiisa rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qul illahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي وحو اسكو خدي habeenka iyo maalinta gadgadoonkoodii iyo saddex gelintooda waxa dhintay iyo waxa nool sida alla u soo kala saaro arsaaqda sida alla u bixiyo taa iyaba alla isku xidhay maamulka bini aadamka sida dadka ilaahay u siisiyo maalikul mulki inuu isagu yahay oo mulkiga ciddu doonana inuu siiyo ciddu doonana inuu ka siibo tuutil mulka man tashaa wa tanzi' الملك ممن تشاء عدو دونا ربي إنو كسيبو كقادو عدو دونا إنو كوريال عدو دونا إنو هوسيالو بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة وين إنو فهمنا مركا كوات يعني واحد مودا مسلم كمان تشوغا عقيدة دي سوء نوع من الضعف إن بدنو كميدو قرعي وين إنو فهمنا القلة والكثرة إناني يقوشو بكو حدني تيرا بدني ده iyo tira yarida xoog badnida iyo xoog yarida inaan guusha alla surin saawgeed baa ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adilla ilaahay maalintii badar buu idin gargaaray idinkoo adilla ah wadhkurullaha idha antum qalilun mustad'afun in yar ka horna waxay ahaayeen qalilun mustad'afun iyagoo yar ayaa alla u gargaaray كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بدن أبا إلهي لي كوح يرو كوحوك بدتي كغالب نغطي كوح ترى بدن له. أيها الأحبة واقع إنه ما تكون والله أفغانستان ودت كوبا أو مسلمين waxaa la dagaalamay wadankii Soviet Union loo oran jiray Russia ma waa Soviet Union waa 15 dawladood oo wada socda waa nin ciidamadiisa joogtada ah 3.4 milyan ahaayeen askara kuwa diyaarka ee marka la doono la keeni karana 8 something ay yihiin waa military Soviet Union ku 10 milyan buu ka badnaa ciidanka inta leegninka haysta oo ah ciidamada ay yiraahdaan Red Army waligood lama jabin bay yiraahdeen meel uu galay waxa jabiyay koox kooban oo muslimiin oo Afghanistan degan waa mar labaad Mareykan oo dawladda dunida u xoog badana oo 45 wadan oo kale wata kaligii maaha 45 wadan oo kale la socdaan ba haddana galay isna waa soo jabiyay taa maxad ka dareemaysaa ayadan aynu leenahay baasho qilla iyo kasra kuma xidhna kuwii tirada badnaa ee xooga badnaa ee hubka badnaa baa soo jabay jabistu ma aha inaad isagoo dhan qabsato jabistu waa ninka xooga badan le wuxuu rabay hadduu waayada wuu jabay way soo jabiyeen waliba Mareykan iyo kuwan kale meel fog bay ka soo duulayeen de Russia xuduud bay la lahayd oo gaariga u soo kala talaabayeen فيتنام وان مسلم هين بجبيسي مريكا جزائر با فرانسيس جبيسي سوريا حداثة ما انت كجرته وينا وركلا وباهن ايا جبيي راشيا iyo maxaa la yiraahdaa Iran iyo kuwa Shiico isu tagtay Shiica Afghanistan Shiica Pakistan Shiica Iraq Shiica Lebanon wuxuu dhan oo isu tagay وبقول كنا عيدا كبدن أيها السوتشبي بل سوريا كليا عيدا كيدو أفر بقولكم كبدنا مركا لقى تقوه إن 2011 كوي حكوري أفر بقولكم بعيدا كيدو كبدنا بقولكم بساسينيو وحلا حديدايهين صدق بقوليو وحوغاناي ملتريهين waxa quraanka ilaahay inoogu tilmaamaya kasradu tirabadnidu inaanay wax xooganahay ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وحستان با إلهي لي مالنتي حنين مركي إذن ياب قليسي تربدني ديني أو فلم تغن عنكم شيئا با إلهي لي وحبسي أنا إذن كترين
مستقبل كان ضمائن هدى شوقنا دي النبي قابت المامين نقول ترى بدل لين نشبينه يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. اوكي حديثك النبي قلت الماما يي وما دوينا يسوكي ما تبالغي واسيدي حدد ضدكم يسوق يردان صاحبتي waxay weydiiyeen ومن قلة نحن يومئذ ما يران با بل أنتم يومئذ كثير بنبغي ما يوتر بدنتي إذا ترى بدني إيه ترى يري قوشكم حدنا يا النصر بيد الله عدي حق مضتنا وصية وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إلهي وحولي قوشو إلهي قعنتي سبيكو جرته إلهينا يسقى العزيز الحكيم كغالب كي حوق بدن له حكمة بدن له عدة مدن إن لو هيليو قول لسيو ربي قويا. وهلنا أيها الأحبة قرآن كإلهي وحينا قلت المامية وتلك الأيام نداولها بين الناس قصص كوكوبر وقرآن كوي البان دين قود مري إلهي وحينا ورمى النبي يوسف قصديس نبي يوسف وقد لقول ردي وهدنا الدونسي قالي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إلهي وحيدي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نبي يوسف وقد لقول ردي سقوير وأدوسي قلي وحبسي قلي أي هدنا إلهينا تصي سقو بغرة هل كأنت لك كياني إلهي ينبودي سبحانه وتعالى ما شرن شربا لوغة اللابية لا يو نغضي محي عزيز مصر وكان نقني فرعون با إلهي قرآن كينا قلت الماما ما لنا فرعون كما فكرين موسى يري قرياغا شوغا با ما شهادة انقلابي دونا قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون هوين يدي سبالي. وقالت امرأة فرعون استجاب لها ألم نربك فينا وليدا لكن إلهي محكوك قبي إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وحن ربنا با إلهي لكوا لقميستي إنه مدح كدقنه waxaan kaloo rabaabaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kuwa inta dhulka makansiiyo inaan fircoon iyo haamaan iyo ciidankooduba wixii ka digtoonaayeen indhahooda shara inaan tusiyo. fircoon iyo haamaan iyo wixii khital la dhigo dhame waxay ahayd maxay reer banu israa'iil cid ka dhalanin oo madaxnimada loogu imanin inaan tusiyaa baan ku talagalay baa ilaahay leeyahay. taqyiirkaasi intuu qaatay xawaalay دينتو موسى أفرتن كجارة يدي بتنكسر نقطة هذا هو بدأت كنتم صنادات أما اللي إحدى صنادات وحكير أي تغيير كاسقاطي إن فرعون يعيد كيسين اللوايو كوا مستضعف كناي مدح النقضان. أيها الأحبة الأمر بيد الله دون ذا إلهي بكتالية لا قلبت بانكتالين ولا بران كتالين. نعم جروح آد ووين داوعية آد وين با مسلمين تكويا الله لبعض التربضا بيدريميا أينما وجد ملك استوي شوغان با ومع ذلك رجاء دبدا بيلين هذا إلهي كتير صدا سبحانه وتعالى وحيد هذا مركي كور رميان متغيرات waxyaabaha bay yiraahdaan variableska markaad wax dorayso oo dars sameynayso ama aad xisaabinayso waxa la raadiyaa shaygaasi imisa variable bulay imisa shay oo iska dayi kara isbedeli kara isbedeladaasi intay qaadan karaan markaas baad oo dorasi kartaa waxaasi wuxuu noqonayo. sidaa awgeed waxa la inoo tilmaamayaa variableska inaanu marnaba bini aadamku koobi karin
sida awgeed oo doras kastoo bini aadamku sameeyaa inuu wada asiiba aad bay u adagtay ka alluun baa saxa subxaana wa tacaala waxaanad adigu moodayn inuu wax bedelayo yaa dunida islahaa yurubtii bari iyo waarso iyo raashiya 2 sano gudahood lagu waayi doonaa dadkiina waaweyn unbaa dee soo gaadhay nimanka iyo xooggoodii iyo militarigoodii iyo waxay ahaayeen 2 sana bariba lagu waayi doonaa cidina kuma talagelin laakiin waxay u daateen sida dominoda maaragtay baashan yara inta la isku taxtaxo xabada la rido midba mid sii rida wuxuuba daataanu adduunya kullaha kadalik laakiin adigu garan maysid inta ay isku sii taxan tahay walidaalika baa waxay sheegaan waxaa jira gabay ingiriisa oo ay kaga warramaan nin gabayaaya tirinayo wuxuu leeyahay musbaar baa boqortooyo dumiyey buu yidhi musbaar baa boqortooyo dumiyey waxay leeyihiin boqor baa ciidamadiisii ninkii dee hormoodka u ahaa kaxaystay ciidamo badan bay wateen dagaal buu galay ninkii ciidanka hogaaminayay ayaa faraskiisa farasku kab buu leeyahay yaroo birah kabta birtaa musbaar baa ku mudan musbaarkii baa ka dhacay bay yidhaahdaan birta u hayay qoobka faraska birtii ku dhisanay musbaarkii ayaa ka dhacay dabeetana birtii baa dhacday dabeetana faraskii baa kufay dabeetana ninkii baa dumay waa la dilay ciidankii baa la jabiyey boqortooyadii baa la qabsaday bay yidhaahdeen waxay markaa gabay ka dhigeen musbaar baa boqortooyo dumiyey ciidana maankaaga kuma tala jirto inta musbaar dhacaba dowladi dhici doontaa waa waxa aad kaaga fog waxaa jira qoladan cilmiga isbadee maraykan ayaa waxay yidhahdeen harikaniskan iyo balaayooyinkan inugu socda hal la baadho cilmi baadhisa lagu sameeyo oo saadeel waa in lagu samayn karaa oo waa in la garan karaa waqtiyada imanayaan iyo say u soo socdaan iyo waxa kan Lawrence nin la yidhaahdo professora loo diray baxthuu waday baxfigiisii waxaa ka soo baxday nadariyadan oo fiisigiisa maanta la yaqaano oo la yidhaahdo chaos theory waxa weeyaan waxay markay tacbiirinayaan yidhaahdaan butterfly baalkan maxaynu dhahnaa balanbaalista Brazil bay yidhaahdaan baalasha ka ruuxday harakoon bay samayn kartaa bay yidhaahdeen dema balanbaalisaad soo tirin kartaa markaa imse balanbaalisood baa baalka ruuxay waxay uga dan leeyihiin ereygan u tilmaamayaan variableska jira waxyaabaha isbedbedelaya tiro badan leh initialkooda ma garan karno maadaama aan la garan karinna lagama saadaalin karo bahalkani goortu imanayo goortu soo dhacayo waqtigu kacayo waqtigu soo degayo iyo tornaadada tani markay kugu soo degayso iyo markaanay kugu soo degaynin maxaan masaa'ilkaa u tilmaamayaa inaan idin dareesiyo idinka weeciyo muruqyada gaalku ma aragteen kuwa alle ina aragtaan subxaana wa tacaala yaa alla siduu dunida tan u maamulo iyo wax yaroo isbedelay siday wuxuu bedeli karayaan waxay culammadu yidhaahdaan dee xadiidka bukhaari ku yaalaaba tilmaamaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam irhaasaad baa ka horreeyey bay yidhaahdaan dowladnimadiisa ilaahay ugu talagalay inay dhisanto مثلا dowladdii islaamka waxay ka dhisantay koowaad waa madiina waxa la yiraahdaa dagaal baa ka dhacay xarbu ducaas loo oran jiray dagaalka Aws iyo Khasraj baa isdilay Aws iyo Khasraj waxay iska mariyeen wixii nin door ahaa oo dhan waxa la yiraahdaa reer Aws iyo reer Khasraj wax nin weyn oo waayeel ah laba nin baa noolaa markuu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam wax nin weyn oo Aws iyo Khasraj ka tirsan laba nin oo qura jiray mid wakiil boqortooyada loo sharaxayay عبد الله بن أبي بن سلول مدينة وأبو الفاسق العامر نينكي قلت كنبي أو قضية كريستان كان قضية عرري لبدا قضية هبار قوياشا النقضي هي وحوية لتشوقي عائشة رضي الله عنها بوحي لذي كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في دخولهم في الإسلام وحيلا دين من كان مدحدودية وأيولكودية وحودية ودموردنتي iyadoo ilaahay ugu talagalay nabiga in loo sii hagaajinayo madiina cid ka hor iman kartaa ba inaanay ku hadhin
quraysh sanadiideedii baa joogtoo nebiga ka hortimay waa yeelkeedii laakiin madiina waa yeelkeedu way madheen dhallinyaradiina nebigay raacday calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba aalaamtiya amaalka oo ku salaysan inta badan dee haziimada iyo guusha asbaab badan oo tan daahirka aan ahayn baa jirta oo xukunta ilaahi subxaana wa tacaala jabkii reer banu qurayda markuu ka warramayay muxuu ku tilmaamay reer banu nadiir maa danantum an yakhrujuu wadannuu annahum maanicatuhum xusuunuhum min allah faataahum allahu min xaysu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim alrucb ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala xoogga nimankaas ay qabaan umaydan malaynin marnaba inay meeshooda laga saari karaya ay ka baxayaan iyaguna umay malaynaynin xusuuntooda in cid u soo dhaafi karto labada malaba saasay ahaayeen muslimiinta malahooduna kaasuu ahaa gaalada malahooduna saasuu ahaa ilaahay se wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala faataahum allahu min xaysu lam yaxtasibuu ilaahay se daarihii iyo wixii ay haysteen dhankoodaba lagagama imane meel aanay filaynin oo ku xisaabtamin baa alle kaga yimi baa ilaahay yidhi waa xaggee ilaahay wuxuu leeyahy waqadafa fii quluubihim alrucb fulanimun baa lagu abuuray haddaad baqato hubkaad sidatoo dhami weligii wax kaa celin maayo orodku madmicin bidi yani hubka nin dhiiran oo geesiya wax iskaga celiya laakiin haddii baqa ku galo hubka waxba ma taro ilaahay markaa wuxuu leeyahy qolada tan cabsi quraa lagu riday dhanka kalena taasi waa haziimadii dhanka guushana ilaahay wuxuu tilmaamayaa in qalbiga waxa ku jiro oo run ahi inuu guul keeni karo ولذلك بقى إلهي وحليه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما إلهي وحوت المام يا سبحانه وتعالى مؤمنين بيعتك لك شيء وبيعة الموت إن لمن أيام بين نبي الله هشيس لك عليه مسلمكي بيعada kula galay geedka hoostiisa ilaahay muu oranin xoogina wax leedinku siiyay waxa leeydi fa'alima ma fi qulubihim wixii qalbigooda ku jiray markay sidqinimadooda rabbi uu muujiyay ayaa fa anzala sakinata alayhim ayaa ilaahay xasiloonida ku soo dajiyay oo wa asaabahum fathan qariba guul downa ilaahay siiyay iyo ghaniimooyin aanay filaynin أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى أودي سوينا إنه مركه رأي إيمان سنار رمينا وكفى أيدي الناس عنكم بإلهي تلمامي إلهي بادتك قعنتو دا إذن كغبطي وكفى الله المؤمنين القتال إلهي ما مؤمنين تدقالكي كغف الله دي وحاصر دمي وحي تلمامي قوش يقول تردو إنا إلهي قعنتي سكوشيرا waxaan filayaa waqtigaagii inuu dhammaaday walidalik halkaasaan iskaga joojinaynaa sala allahu cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbil caalamiin